السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام صاحب يال ما أنت وحرنا كهالو توبيك أد مهمة أو ضد كبرنا كتكبر ركستانين work skills كلا بعلاقة بيا وهاد skill iyo soft skill هاد skills كمان نقص حقوق بسعرنا وطن وحبر الشهادة الجامعة أدوك أنا قلنا soft skills لكن جامعة وحبر الشهادة منا لقوم برضو فيديو مرة إن شاء الله إنا نكون فلان جاية من ده كلا دنيا عصرية ما أنت لقى قف كلي لقى مرة هاد skills إنا كأنا كصاب حد engineer تهاي software عاد برات programming كورين أدبرت أدو حرفة أتقاند وهذا سكيل كي أتقاند soft skills هدي هذا الحين ويكوجت كانت واحد إن شغله قصي واحد رجع قف كأقوير أو سكيل كأتقان هذه أكبر في شخص أنت لكن soft skills إديارسين إن شغله لصيه والدنيا عصرية قاب كمان أنت أو شخص لكن فيديو ما ربع إلا أرقد بإن متقان أكو شرحه soft skills كمهم كوا أدين أضبها أنت نروش هذا واحد بدنا أتكبر work skills كمان كساحب يلا والواقع بيها وهذا سكيل soft skills هذا سكيل كأعوضنا قانون أنكوه مرة هذا سكيل كساحب يكون جامعة أنو أدنى كلية هذا يكورسوين كأنكو قاعدنا إن هذا حوي برنامج هدي أصلا نقطة إن كودي كبرتها إنجنيرين دكتور أكاونت هدي أصلا نقطة إقتصادي سكيل ولا knowledge حرفة إنها برتد إلا أقف كده مركو ساء وير هذا وأصلا دكتور قرآن لقي سكول لقي لا جامعة وحصل أقف واحد لغته برا يعمل لغة بربارين يا وهذا سكيلز لكن soft سكيلز أيضا هم سحب يا المهم بإيمان وحنكون قاعدين كرنا وحرفها كلا سن soft سكيلز لا بقى هذا مركو الله برتا soft سكيلز من أي جامعة دي وحبر الشلو ما هذا وحلا يا ترينين أما سيمينار إلى واحد يربيش ديفلوبمنت خصوصا إنها برتد لا بقى هذا مركو ولا الله برتا soft سكيلز كو وحكون بران كذا real wood أدون كعادية بتكون بران كذا وايا متقنا إن قف كدوشة كأركيو بشيء كرو soft سكيل كهرنت إن قاب ويا طلبان waxa u baahan tahay wax experience u baahan way over time u baahan tahay ina hormarisid xirfadaha jilicsan ama wax loo yaqaan soft skills qodobkeen oo walaal wuxuu noqonayaa waa confidence in aan lahaatay waxa way kalsoonida walaal waa shay aad u cajiib oo muhiim ah sidba ku sheegaya hadii aad rabtid dad badan inay ku kalsoonaadaan oo qof waxa way kalsooni badan lagu qaba dhan kasta markay noqoto aragti in noqotid number 2 waa in adigu naftaada aad ku kalsoonaataa naftaada marka respect gareysid aad ku kalsoonaatid qiimaheeda aasiisid markaas bay dadka kale ku kalsoonaanayaan oo respectiga iyo kalsoonida aad rabtid dadka ay ku siinayaan sidee marka adiga naftaada aad ugu kalsoonaanaysaa waa su'aal runtii cajiib ah si naftaada aad ugu kalsoonaatid waxa laga rabaa adiga marka xirfadahaaga skillskaaga dhan aqooneed waxa weeye inaad iska diyaarisid dhan mataqaana mentally inaad waxa runtii iska diyaarisid inaad buug badan akhrisid inaad waxa weeye information badan aad raadisay xirfado badan baratid skill badan baratid si aqoon iyo update badan aad u heshid takalo muhiim aydan muhiim naftaada ku kalsoonaatay aydan waxa kamid waxa weeye in naftaada aad ixtiraamto kaliya lama rabo mental ahaan inaad mataqaana maskaxdaada aad dhisid waxa loo baahan yahay bodyga caadiga physical bodygeena jirka inaad dhisid soo kale week saddex jeer inaad samaysid waxa loo yaqaan exercise ama taqaana inaad mataqaana jimicsi aad samaysid jimicsiga wuxuu rabo noqon karaa ama kubad dheer ama gym aad ama soo orod ama mataqaana jogging samee oo wax yar soo logay weegi at least waa inaad saddex jeer aad samaysaa marka jirahan marka aad caafimaadkaaga aad ka taxadirtid cuntada xataa aad cunaysid aad ka taxadirtid saliid iyo sokor iyo waxa aan lahayn oo waxa dii mataqaana carar weynaad iyo mataqaana shape-kaaga dii shapeless ka dhigayo oo ka khaldayo formka inaad iska ilaalisid maskaxiyan aad isku dhifsido aqoontii iyo informationkii iyo mataqaana xirfadii skillkii aad raadisay book badan akhris marka naftaada waxa ku helaysaa kalsooni buuxa waayo waxa noqon qof waxa weeye xog badan hayo dadka wax badan la shaqeyn karo dantiisana yaqaano oo mataqaana oo asaga is ixtiraamay asaga isku kalsoon marka dadkana way ku kalsoonayaan marka qodobkeena labaad ee waxa weeye soft skills wuxuu noqonayaa waxa loo yaqaan self motivation in adigu walaal isdhiirigelisid way adagtaa maalin kasta inay heshid qof ku dhiirigeliya oo ku dhaniyo hor soco waxaan sameeyay update runtii aad bay u adagtahay inay heshid marka waxa fiican motivationka iyo dhiirigelinta inuu adiga ka bilaamo sidee adiga motivationka iyo dhiirigelinta ka bilaamin kara number 1 waxa dhigi kara waa time management in aad taqaanid sida waqtigaaga loo manage karayo markaas motivation badan baa helaysaa ku kala horeeyaan taskiyada iyo mataqaana waxyaalaha aad rabtid maalinkaas oo kale aad qabatid haddaba book baa jira saaxiib la dhaho runtii aniga aad ii anfacay markii noqotay waxa weeye time managementiga buga waxa la how to make time sidee loo sameeyaa waqti bugaas asoo waxa dhageysta maqala Spotify waad ka heli kadhaa runtii kale waxa ka heli kadhaa audible halka aad ka dhigsan kadhaa asoo qoraalna ugu jira oo hard copy ah asna waa dalban kadhaa buga marka wuxuu ku sheegay qof walba oo adduunka jooga inuu haysto 24 hours
inuu maalin kasta haysto laakiin sida looga faa'iideysto ay ku xiranta dadna si saxda waqtigooda ay uga faa'iideystaan ayagu waqtigooda ku raaxaysanayo waxyaalaha mataqaanaa move waaweyn sameeyo oo naftooda hore u socdo mataqaanaa wax badan nafta ku soo korinayo qofna waxa laga yaabaa 24 hour inuu manage gareyn leeyahay oo si maala yacanaya khasaaraha ay runtii ay uga dhamaato ama maalinkaas asaan waxba qabsan almost oo productivity-giisa aan zero ah inuu maalinka uga marka buugaas waxaan kugula talinayaa inaad soo akhriso motivation asana waxa hoosta waxa la mataqaanaa inaad noqoto qof organize ah xagee ka bilaabataa in organize-nimada organize-nimada waxay ka bilaabataa guriga aad degan soo markaa soo kacay maxaa samaysaa haddii aad inaad qof organize diiwana sariirtaadii aad marka hore aad hagaajisaa waxa u horeeya la bilaabo wax ku fiican waa sariirta ka soo kacdayba inaad marka hore aad hagaajisid kadib waxay maalinkaaga aad waa in gurigaaga iyo xafiiskaaga uu ku organize gareeyay soo kale xafiiska aad fariisto kale inuu kaduu ku organize yahay waxa ku fududayn in shaqada maalinkiisa qurux badan motivation aad isku waayo wax qurux badan marka aad timaadid wixii waa ku raaxaysanaysaa laakiin wax isku dhacaysan mataqaanaa oo clear ahayn oo mataqaantii aad mataqaanaa isku dhacaysan waxa la inaad dhibsido aad ka fikirtid baniyo waxaan si u nadiifisaa si u sameeyay qof marba organize ah qodobka ugu dambeeya ee hoos tago self motivation ka waxa weeye optimistic aan noqoto qof dhan kasta positive ka fiiriyo marka fikir ama idea loo sheego sidoo kale inaad ganacsi bilowdaarta dhanka wax ka fiirta mataqaanaa positive ka adana negative saxda gali qof wax ku weydiiyay waxa kugu dhacay maalintaas xoogaa challenge ba ku soo wajahay dhan kasta positive u qaado marka wax noqonaysa inaad motivation hore u socoto qodobkeena saddexaad walaal wuxuu noqonayaa waxa loo waa problem solve dabcan dunida maanta la joogo markasta waxa ku soo wajahay waxa weeye problem ama dhanka waxa weeye financial mataqaanaa problem ha qoyso ama family problem ha qoyso ama career problem waxbarashada ama skillka abarinta jaamacadda u joogta ama schoolka problem runtii waxbarashada ha ka hayso adiga problem un baa ku soo wajahay hadaad inaad wax cusub bilowdid isbedel aad sameeysid sidoo kale challenges wata marka dunida dhan move la qaada ama talaabada la qaadaba caqabad bay leedahay marka waxa loo baahan yahay in noqoto qof mataqaanaa oo critical thinking oo si qurux badan challenge-yada adduunka soo wajahayo aad dhimaysid marka problem solve nafta aad xalisid baa waxa laga yaabaa dad kale problemyada inaad ka caawisid aad ka xalisid kuwaaga intii aad overcome ku sameeysid overtake ku sameeysid aad soo dhameysay aad meel iska saartay marka waxyaalaha lagu barta weeye waxa weeye soft skills qofka kor u qaaday kara hadaad soft skills ka dhigtid inaad mataqaanaa problem solve fiican sidoo kale team baa la shaqeeya shaqaalaha shirkad baa ka shaqeysa ama dad baa la shaqeeya team work baa runtii meesha lagu wada joogaa qofka marka soft skills fiican waxa laga yaabaa in asaga loo geeyo problem kasta oo mataqaanaa u baahan innovation iyo creativity oo baa in loo geeyo oo soo xaliyo baa laga yaabaa ama dhan business ha noqoto ama strategy dhan kale ee runtii ha noqoto dadna waxa laga inaysan caqabad ay xalin karin oo wax simple ah ee laba u kala goon karin oo kala maamuli karin dadna waxa laga yaabaa wax mataqaanaa fail mataqaanaa tough ah فيري متقانا and complicate إن متقانا وقت ير ku xaliyaan ku kala dirdiraan ku kala farfaraan marka waa muhiim inaan barato waxa loo yaqaan problem solving marka hore ku adag soo wajahaya mataqaana iska xalli iska maare adoo mataqaana timeline goals runta u sameeyo ka soo gudub waxa ku fahmo marka dadka la shaqeynaysa in loo hebel u geeyo hebel ba waxa weeye mataqaana wax farfuray qodobkeena afraad walaalayaal wuxuu noqonayaa interpersonal skills waxa la dhaqanka dadka habla dhaqanka dadka marka la socota qaabka aad ula dhaqantid runtii waa soft skill adig ka turjumayso ma qof waxa tahay waxa weeye dad la dhaqan wanaagsan oo good mataqaana listener ah oo hadii maanta aan qof la bilanto kale in qofka aad dhageysatid mise adaa maanta inaad iska hadasho qof hadii hadalka ka boobayo oo maanta dhan iska halayo qof soft skills runtii aad u liitaa waliba tan habla dhaqan dadka marka qofka inaad marka dhageysid oo qofka tookadiisa aad dhageysatid taadan aad si qurux badan aad u hadasho sidoo kale qodobkan waxa hoos imaan karo waxa way dhanka waxa way balamaha qof baa la balantay inaad balantay waqtiga aad ilaasay ahdi baa la gashay amaana lagu dhiibtay si kala qof ku aamin marka qofna waxa laga wixii loo dhiibtay in loogu imaado qofna aan loogu marka waxa la kala saaray waxa way waa habla dhaqanka dadka qofka habla dhaqan fiican ma leedahay marka daarta inaad dad badan la socotid inaad habla dhaqan leedahay si dadka waxa way runtii waxa way qof aamina oo diyaarsan oo mataqaana oo runtii dadka aan ku xadgudbin aad u noqoto qodobkeena shanaad walaalayaal wuxuu noqonayaa waa leadership waxa loo yaqaan ama hogaamiye waxa laga yaabaa inuu kugu soo dhacay leadership marka ama hogaamiye madaxweyne wasiir amiir ama qof kale waxa weeye meel xil ka haya leadership nimada ama hogaamintu wax ka bilaabataa naftaada walaalayaal
naftaada inay hogaamiso adaa madaxweyne isku adaa waxa tahay mataqaana dawlad soconayso marka ina adigu waxa way naftaada aad hogaamisid waxa ku fiican waxa faa'iido ku leh wax hore ku qaadi karo horumarkaaga businesskaaga ina mataqaana nolosha ka jirto maanta mid ka fiican aad gushid waxa aad u baahan tahay hogaamiye xarag u ahayo saa ognahay naftu waxa jecesha waxa la iska raaxada ina maanta TikTok iyo social media kaga jeedid 24 hour aad maala yacni qasbi nafta iska rabtaa inaad wax baran bay nafta rabtaa skills iyo xirfado baran inaad book akhrin bay nafta rabtaa inaad exercise gym iyo ama orod ama wax kale oo naftaada hor u qaadayo sameynaysa wanaaro iyo shirar inaad safartid dal baratid waxaas oo naftaada wax inay sareen baa laga yaabaa laakiin meel iska fadhi iska raax iska seexo baa laga yaabaa nafta inay rabto marka adaa hogaamin isku baa marka naftaada marka hogaamisid baa qof kale dii hogaamin kala Soomaaliya waxay dhahaa tis daryeela tukara ku dalo marka adiga is hogaamisid baa dad kala di ama team kale baad hogaamin kala adiga hadaa is hogaamin oo dayacan tahay bay kugu adkaanaysaa waxa weey inaad dad hogaamisid mid kale waa inaad noqon qof la dhaw mataqaana yes man ama waxa Soomaalida ugu yeeran dameere dhan raacday maanta qof ku soo wacay halka ay raac yes iska raacday bariigu ku soo wacay halka ay maana qof marka si la heli karo oo aan diyaarsaneyn marka qof meel kasta u raacday already waxa la dareemay inaan maalinkaaga u qorshe ku lahayn ada maanta waxa qaban ku lahayn qof marba heli karo amal aan inaad tahay marka mar walba hadii laakiin hogaaminta saxan tahay qorshahaaga iyo waxa sameeysanaysa goolasha maalinka aad sameynaysid marka inaad ku socoto layaa processka hadii qof soo maanta mashquul baahay maalin heblayn noqon maalin aan fasaxata marka naftaada inaad hogaamisid aad waxa weeye waxa jeceshahay sameeysid waxa ka caawinaysaa inaad adigu hogaamiye fiican qodobkan lixaad aan rabaa inaad ku soo gabagabeeyo wuxuu noqonayaa waxa la yaqaan teamwork aad u muhiim u yahay dabcan waxaan qasabay inaad adduunka hadii aad joogto inaad dad aad la shaqeyso ama dad waxa weeye wax idin dhexmaraa business ha noqdo ama dhan kale ama project kale aad ka wada shaqeysaan marka teamwork runtii aad muhiim u yahay dadka mataqaana isfahmi karaan oo mataqaana teamwork fiican leh oo mataqaana duntiisa fiican tahay oo runtii la shaqeyn karo la fahmi karo warkiisu cad yahay axadiga iyo meeshii la isku ogaa loogu iibaan karo shaqadii loo diray soo dhameyn karo wixii asaga dadka uu ka sugin weydiisan karo mar qof team qurux badan leh waa soft skills runtii aad u fiican saaxiibayaal ma soo koobi karo soft skills bil ka hor waxa soo dhigay Telegram-kayga ilaa 22 qodob oo soft skills halkaas ba ka daalcan ka dhaa inkastoo ay English tahay laakiin insha Allah intaana asir waa inta ugu muhiimsan waana ka soo haday aad baa idin salaam yahay ilaa in la